libaaxii xalay toole inuu warcadee baxsaday gabadha dhaawaca weyn u geystay ciidamada ayaa ilaa xalay ku daba jiray hawlgal ay sameeyeen way ku guuleysteen kadib markii ay 7 xabo ku dhufteen ciidankaasi waxa hogaaminaya Cabdi Axmed bal waxaan wax ka weydiin doonaa hawlgalkaasi sidoo u dhacay iyo waqti uu qaatay taliye wanarkay libaaxii waad ku guuleysateen bal waxaad ka warantaa sida hawlgalkan uu dhacay bismillaahir rahmaanir rahiim xalay 7 barkii markay ahayd baan loo soo sheegay baalkaasi inuu soo dhacay gabadhna wax yeelay muddo 7 mirir gudahooda ayaan ku soo gaarnay goobtii ilaa xalay waanu ku jiray baadidoonkiisa insha Allah taala taliya ciidankuna waajibkii buu na siiyay ciidannimo raadiyahana uu ka sheegay idaacadda shantii barkii subaxnimo ayaanu baalkii helay inkastoo deenu soo hujuumay haddana waanu ka xoog roonaanay baalkaas sidaas ayuu ku dhintay waana shaqadii caadiga ahayd ee ciidanku qaban lahaa qayb kamida oo waliba yar ma aha wax weyn ma aha waa baal xayawaan oo soo dhacay oo shacabku ka badbaadinay waana shaqadii aanu shacabka u haynay weeyaan taliye intii hawlgalkaad ku jirteen wax dhibaato libaaxu maydin keenay idinka maadaama uu sacaabinay dhaawacna u ahaa waxa la dagaalamay ciidan tababaran wax dhibaato anaga nooma keenin halkee ayaad ku qabateen markaa libaaxa kullay agagaarkii dooxa qarkiisa meel garan waa bartankiisa ayaanu ku qaban hawlgal iyo dadaal fara badan oo ciidanku ay sameeyeen ayaa waxay ku guuleysteen inay dilaan isla markaana ay ka badbaadiyaan ummadda libaaxii xalay toole xadhkaa goostay gabadha dhaawaca weyn u geystay hadda waxaan ag joogaa waa raqdii libaaxa oo lagu dhuftay 7 xabo oo ay dileen ciidanka RRU-da ama ciidanka Booliska Soomaaliland Cabdiqaadir Coday Bulsha TV Hargeysa